isla markaana Black wuxuu sheegay inaan waxba ka qaban karin waxa dhacaya. Cabaar kadib gaadhi ayaa lagu soo agtuuray agaasimaha iyo gacanyarayaasheedii. Isla markaana Mr. Sambi ayaa ka dami yimid baabuurkii isagoo burburiyay gebigiisiiba. Kadib wuxuu yidhi agaasime waxaa la gaadhay waqtigaan magaaladeeda kusoo kala bari lahaa. Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waxaan ugu horreyn si kaliya laaba idinku mahadcelinaya maadaama aad na gaadhsiiseen 9,000 oo subscribers ah. Number oo kaliya anigay ma ahay balse waxaad ii tihiin qoys iyo dad aan jecelahay. Hadafkeenna waa inaan gaadhno 10,000 oo subscribers ah. Taasna aad macquul ka dhigi karba haddii aad subscribe na soo dhahdo. Intaas kadib muuqaalku maanta waa qaybtii 5aad ee Mr. Sambi. Haddaad nagu cusub tahay fadlan soo dhawow. Afartii qaybood horena soo daawo si aad sheekada ula socotid. Intaas kadib aynu bilaabana xalaqada xiisaha badan ee maanta. Waxaan aragnaa faylad oo gidaar ku dhacday iyadoo burburisay gidaarka. Kadib soo kacday isla markaana la yaaban sababta ay dhawn u xoog badan tahay. Dhawn waxay ku tidhi weli waan dagaalami karaa. Markiiba faylad xawaare ayay ku dhaqaaqday iyadoo dhawn gadaasheeda ka soo muuqatay. Laakiin dhawn madaxeedii ayay soo wareejisay, kaasoo ka nixiyay faylad. Kadib qoriga ayay ku dhufays tidhi, laakiin faylad way ka booday meeshii. Dhawna rasaas ayay ku bilowday iyada. Kadib faylad dhankeeda ayay u soo booday iyadoo kala jartay dhawn. Laakiin dhawn markiiba caadi ayay isku soo noqotay. Faylad saayid ayay u yaabtay iyadoo weydiisay waxa uu Mr. Sambi ku sameeyay jirkeeda. Laakiin dhawn may dhagaysan oo feer ayay la dhacday iyada, kaasoo ku tuuray gidaar. Caadi markay dhawn ku soo noqotayna way naxday iyadoo weydiisay haddii ay dhib u geysatay faylad. Fayladna kaliya waxay weydiisay haddii aysan dhab ahaantii ahayn Sambi. Laakiin dhawn waxay sheegtay in la shay baaray oo loo sheegay inaanay ahayn Sambi. Kadib waxay weydiisay sida ay qoorteeda u wareejisay. Dhawnna ma aqaana ayay ugu jawaabtay, kaliya waxaan ogahay inaan samayn karo wax dhibaato ahna igama soo gaadha ayay ku tidhi. Faylad cadho awgeed ayay kala tuurtay dhawn iyadoo meeshii iskaga timid, halka ay dhawna weydiinaysay meesha ay qabanayso. Faylad isla markiiba diyaaradda ayay soo kaxaysatay iyadoo timid magaaladii Mr. Sambi, halka uu Mr. Sambina ciidankiisa xilal u dhiibayay. Blacky ayuu ka dhigay midka lacagta maareeya. Isla markaana faylad ayaa soo gashay xafiiska. Kadib afkiisa ayay kala furtay iyadoo gacanteeda dhex gelisay, kadib wuu qaniinay. Isla markiina meesha way iskaga soo baxday, iyaguna way yaabeen. Gacanyaraheedii ayaa weydiiyey haddii aanay ka baqanayn in Mr. Sambiyada maamulo. Laakiin waxay ku tidhi haddii aan heli karo awoodan jirkayga ku bedelo sida dhawn oo kale, wuxuu doono muu igu sameeyay waxba igama gelin aniga awoodda ay daran. Isla markaa Mr. Sambi wuxuu noqday guddoomiye, isagoo magaaladii dhisay, furay meelo faashiyonka ah iyo timo jare. Sambiyadii kalena shaqo ayuu u abuuray. Dhanka kale agaasimihii weli wuxuu ka soo horjeeday in Mr. Sambi guddoomiye laga dhigo, maadaama uusan u ekayn qof mas'uuliyad qaadi kara oo daciif ah. Kadib waxay go'aansatay inay tagto magaaladiisa oo ay la kulanto isaga. Dhanka kale qaaradda waqooyi ee barafka ah, culimo saynisyahanno ah ayaa helay jidh la sheegay inuu yahay dadkii qadiimiga ahaa ee hore, iyagoo dhankiisa u kacay. Kadib wiish ayaa soo saaray jidhkii oo ku dhex jiray baraf aad u weyn. Iyagoo eegaya oo la yaaban jidhkan ayaa mid ka mid a nimankii xagga dambe lagaga yimid oo qoorta laga cunay gebigiisiiba, halka uu saynisyahankiina yaabanaa. Kadib waxaan aragnaa nin iyo naag dhago iyo micyo dhaadheer leh. Kuwani waa vampire. Kadib barafkii ayay jabiyeen iyadoo gabadh timacad ka soo dhex baxday. Iyaguna waxay ku sheegeen inay tahay boqoradooda, laakiin iyadu hal su'aal oo kaliya ayay weydiisay, waxayna ku tidhi weli Sambigii sidan ii galay ma nool yahay. Shaqaalaheediina wuxuu u xaqiijiyey inuu nool yahay, xitaa 1000 sano kadib wuu nool yahay ayuu ku yidhi. Laakiin markii ugu dambeysay ee uu bini'aadamka xasuuqay dhammaantood wuu isbedelay oo wuxuu isku dayayaa inuu la noolaado bini'aadamka. Iyaduna waxay tidhi mar dambe ma khasaari doono Mr. Sambiyow. Dhanka kale xarunta ururka bini'aadamka waxaa loo yeedhay dhammaan guddoomiyeyaashii, sababtoo ah waxa meesha lagu hayay nin cudur aan la garanayn ku dhacay. Kani wuxuu ahaa ninkii uu vampire-ku cunay, iyadoo dhakhaatiirtu dib u hayaan. Isla markaana meesha waxaa loogu yeedhay Mr. Sambi oo gaadhi lagu soo qaaday. Markii uu meesha soo galayna waxa soo dhaweeyey qolo ka socota dugsiga birta, iyagoo moodayay inuu yahay daciif. Laakiin waxaa arkay guddoomiyihii birta oo ogaa Sambi awooddiisa. Kadib wuu ka dhuuntay meesha isagoo cabsi hayso. Mr. Sambi ayaa la weydiiyey waxa ku dhacay ninkan, isna wuxuu yidhi da'daydaanan garanayn markaasaad weydiinaysaa waxaan oo kale, sidaan ku ogaanaya anu macaalimul qayb baan ahay. Laakiin markuu arkay ninka qoortiisa miciyaha ku yaala, gebigiisiba wuu isbedelay. Isla markaana ninkii ayaa ku qayliyey, laakiin cabsi ayuu la aamusay ninkii maadaama uu Sambi isbedelay. Meeshii dhammaydna way burburtay, halka ay dadkiina la yaabanaayeen waxa dhacay oo ay isweydiinayeen waxa ka qaldan Mr. Sambi. Dadkii ayaa gidaar ku dhacay, kadib isweydiiyey waxa ku dhacay Mr. Sambi, halka ay dhawn iyo fayladna dhulka iska jiifeen maadaama ay dabeecadda Mr. Sambi la qabsadeen. Dhanka kale Mr. Sambi ninka ayuu cunaha qabtay isagoo ku yidhi waxaan hubaa inaan dhammaantiin idin xasuuqay ee sideebaad ku noolaan kartaan, isagoo isla markaana weydiiyey halka ay joogto gabadhii u talinaysay ee jeclayd in isaga sumayso mar kasta. Ninkiina wuu ooyey isagoo leh wallaahi ma garanayo, anigu shalay baan noqday vampire saan ku ogaanayaa waxaan oo dhan anu war uma hayaad ka sheekeynaysid. Xitaa nimankii dhulka jiifay waxaa la yaabeen awoodda Mr. Sambi. Kadib meeshii ayuu ka soo baxay iyadoo faylad weydiisay waxa dhacay. Kadib wuxuu ku yidhi taxadir sameeya maalmahan maadaama qabiilkii dhiigga jeclaa, balse markuu intaas yidhi ayuu aamusay. Kadib wuxuu yidhi waan ilaaway waxaan rabay inaan idiin sheego. Taasina dadkii ayay istaaga ka riday. Fayladna maskaxdaada maxaa ka qaldan bay ku tidhi, laakiin isagu intuu qoslay ayuu sheegay inuu soo xasuusan doono goor dhow. Dhanka kale vampire-kii wuxuu keenay boqoradii meel luuq ah
isagoo u sheegay inay halkan ku nool yihiin iyadna saa'id ayay u xanaaqday maadaama ay derbi jiif noqotay. Kadib laba nin ayaa shilin lacag ah u soo tuuray iyagoo ku yidhi wax ku cuna, halka iyaduna xanaaqday ayuu gacanyaraheedii lacagta ku farxay. Kadib way ku qaylisay iyadoo ku tidhi maxaad barafkayga iga soo dhex saarayseen, sidan nolol maahee. Laakiin gabadh yareed ayaa tidhi ma ogi sidaan ku noolayn, kunkii sanna ayaad naga maqnayd. Markuu saambi ku dilay wuxuu bilaabay inuu qabiilkeennoo dhan ugaadhsado, markaas si aan uga badbaadno isaga waxaan qorshaynay inaan iska dhigno kuwa dhintay. Markaa cabsi awgeed ayaan dhuumasho ugu jirnay oo waxaan noqonnay dad aan waxba haysan, waxna qabsan karin. Kadib inta boqoradii hadashay ayay ku tidhi markaa maxaad ii soo saarteen wabad ogtiin inaana waxba idin qaban karine. Laakiin gacanyaraheedii ayaa hadlay isagoo u sheegay inuu helay xog caawin doonto iyada. Waxa uu sheegay inay heleen nin ka dhigi kara iyada qof awood badan. Ninkaasina wuxuu ahaa Professor Jami ama Fay. Professor Jami waxa lagu xidhay xabsi aad u adag, islamarkaana Master Sambi ayaa yidhi maxaad u dili weydeen intaad xidhaysaan. Laakiin Violet ayaa u sheegtay oo u sharaxday in loo baahan yahay in la ogaado shaybaadhadiisii iyo sidoo kale basaasiinta nagu dhex jira. Laakiin Sambi ayaa ku yidhi ka waran hadduu baxsado. Ninkii kale ee ag fadhiya ayaa qoslay isagoo yidhi siduu u baxsan karaa. Ma ku soo tusa ayuu ku yidhi sida loo ilaalinayo, iyagoo islamarkaana isku soo raacay dhanka xabsiga. Markay soo gaadheen wuxuu u sharaxay in ciidan tiro badan ay ilaalinayaan meeshan, sidoo kalena ay bamboyn ku xidhan yihiin Professor Jami jirkiisa. Markaa xitaa hadduu qof isku dayo inuu badbaadiyo way isla qarxayaan dhammaantood oo meeshay ku wada dhimanayaan. Master Sambina wuxuu la yaabay sida uu bini'aadamku u arxan daran yahay, isagoo meeshii iskaga soo cararay oo magaaladiisii kusoo noqday. Dhanka kale qoladii vampire-ka ahayd waxay maqleen ninka hadalkiisa iyagoo qorsheynaya inay soo badbaadiyaan Professor Jami, laakiin waxay ogaadeen inaanay macquul ahayn taasi. Ninkii ayaa Violet la hadlay isagoo ku yidhi waan ilaaway inaan kuu sheegee maxaa saaxiibkaa Sambi ugu sheegi weyday in agaasimihii magaaladiisa kusii socdo. Iyaduna waxay ku tidhi saaxiibkay ma aha, laakiin ninkii wuxuu ku yidhi waxba igama gelin hadduu saaxiibkaa yahay ee u sheeg inuu agaasimihii kusii socda oo uu khatar ku jiro. Dhanka kale Master Sambi magaaladii ayuu iska dhex socday isagoon ka warqabin dhibka kusoo wajahan. Dhanka kale waxaan aragnaa Professor Jami oo hadlaya islamarkaana wuxuu yidhi si uun dhiigaaga ama DNA-gaaga waan ku heli Master Sambiow. Laakiin gacanyarihiisa ayaa la hadlay oo isagoo ku yidhi waad ogtahay inay midaasi aanay macquul ahayn, xaalkeennuna aad ayuu xun yahay, dhowaanna waa layna dili doonaa. Laakiin Fay wuxuu yidhi maya kuma dhacaan inay tinteeda xitaa taabtaan ilaa ay ka helayaan shaybaadhadaydii. Laakiin waxaanay ogeyn inaan xogtaasoo dhan u dhiibay dadkaasoo meel aanan anu ogeyn xitaa ku diray oo aanu xitaa kama warqabo meesha xogteedii taallo. Laakiin sidee baad ku heli kartaa dhiigga Master Sambi ayuu weydiiyey gacanyarihiisii. Xitaa haddaad heshid ma samayn doontid noole ka awood badan isaga. Laakiin Fay wuxuu yidhi haddaan helo jidh awood badan waan samayn karaa. Isla waqtigan cunto ayaa loo keenay iyagoo kadib cunay cuntadii, laakiin afkiisa dhexdiisa waxaa ku jiray mikrofon kaasoo uu kala hadlayay ninkii waardiyaha ahaa oo ah basaas isaga u shaqeeya. Kadib wuxuu weydiiyey halka uu Sambigi yaallo, ninkiina wuxuu sheegay inuu yaallo dabaqa sare kaasoo la ilaalinayo. Isna wuxuu ku yidhi si fiican ay ku ilaali jirkiisa. Dhanka kale Master Sambi oo magaaladii iska maraya ayaa la soo wacay. Kadib Violet ayaa u sheegtay in agaasimihii uu kusoo socdo. Haddii agaasimuhu ogaado inuu Sambi yahayna shaqada waa laga eraya ayay ku tidhi. Isna wuu naxay isagoon aqoon wuxuu sameeyo, laakiin wuxuu arkay makeup dhinaciisa ku yaala. Dhanka kale agaasimihii wuxuu soo gaadhay airportka diyaaradaha kaasoo ay diyaarad ka soo raacaysay. Kadib waxay ballan qaaday inay shaqada ka fadhiisin doonto qofkan daciifka ah. Gawaadhi ayaa cirka ka soo daadatay. Master Sambina dhulka ayuu kasoo degay isagoo Blacky u sheegay in makeupka gawaadhida ku jira loo qaybiyo Sambiga sida ugu dhaqsaha badan maadaama agaasimi dhankooda kusoo socdo. Blackina wuxuu ku amray kuwii kale inay qaadaan gawaadhida oo ay dadka u qaybiyaan. Kadib makeupka ayay bilaabeen inay marsadaan halka Sambigiina loo qaybiyey, waxayna u ekaadeen dad caadi ah. Kadib waxay kusoo noqdeen xafiiska iyagoo arkay Blacky oo qof caadi u eg, iyagana waxay ka dhigteen iyagoo sugaya agaasimihii kuna sugaya dhanka airportka. Laakiin waxaanay ka warqabin in agaasimuhu uu soo raacay tareenka islamarkaana uu soo raacin diyaaradda, sababtoo ah waxay ogeyd in imaanshaheeda loo sii sheegay Master Sambi. iyadna waxay rabtay si qarsoodiya inay meeshan u timaado oo ay xog urursato. gacanyaraheedii ayaa weydiiyey sababta ay u necab tahay Master Sambi. kadib kii kale ayaa ku yidhi sababtoo ah waa daciif maadaama agaasimuhu xitaa guddoomiyayaasha kale ay necab tahay oo keliya guddoomiyihii hore ay taageeri jirtay, kuwa kaloo dhanna daciif ayay ula muuqdaan iyaduna waxay tidhi haa waa saxan tahay, anuu keliya waxaan awooddiisa hubaa guddoomiyaha seer la odhan jiray, isagoo keliyana bini'aadamku wax u qaban karaa. siduu u tegayna qof walba wuxuu iska noqonayaa guddoomiye iyagoon awood xitaa lahayn. midaasna ma ka soo horjeeda ayay tidhi. wax yar kadib waxay bilaabeen waraysi ay dadkii ka waraysanayaan qaabka uu guddoomiyuhu ula dhaqmo. kadib nin ayaa weydiiyey sababta alaabta dukaanka taalla ay gebi ahaanteedba u tahay ukun ama beed. odaygii Sambiga ahaana wuxuu ku yidhi waxaad tidhi oo dhan mabaan fahmin baanu, xitaa kulamaba hadli karayaanu, sidoo kale kumaba arki karayaba oo waan indhalaayahay oo gebigiisiba caadi buu u inkira ninkii dhammaa. kadib waxay waraysteen wiil yar iyagoo weydiiyey qaabka guddoomiye Sambi ula dhaqmo. wiilkiina wuu ammaanay laakiin gacantiisa ayaa dhulka ku dhacday taasoo ka yaabisay ninkii. wiilkiina intuu qaatay gacantii ayuu ku yidhi hooyadii ayay yeedhaysaa hana ka warwarin gacanta, waa gacan caagahe. agaasimihiina wuxuu ka xanaaqsanaa sida iyo qaabka ay
ay dadka magaaladani ula dhaqmayaan iyadoo tidhi iigu qor buug intaasoo dhan. Dhanka kale Mr. Sambi ayaa askari la hadlayey kadib Ohgo ayaa weydiiyey waxa ku dhacay. Askarigina wuxuu sheegay in markuu cuntada cunay kadib uu qaab kale noqday. Ohgona ninkii ayuu cunaha qabtay isagoo weydiiyey waxa uu cuntada ugu daray. Askarigina wuxuu ku yidhi waxba ugumanaan darin ee keliya basbaas ayaan ugu karinay beedka ama ukunta. Ohgona wuu naxay isagoo islamarkaana yidhi khalaas imika boqorku wuxuu ahaan doonaa qaabkan muddo bil ah maadaama basbaasku jawigiisa kiciyo. Kadib wuxuu soo wacay Balaaki isagoo u sheegay waxa dhacay. Balaakina wuxuu yidhi waan hubaa inaan dhammaan basbaaska oo dhan aan tuuray ee marka xagge laga keenay. Ohgona ma aqaana ayuu ku yidhi. Islamarkaana Balaaki wuxuu sheegay inaan waxba ka qaban karin waxa dhacaya. Cabaar kadib gaadhi ayaa lagu soo agtuuray agaasimaha iyo gacanyarayaasheedii. Islamarkaana Mr. Sambi ayaa ka dami yimid baabuurkii isagoo burburiyey gebigiisiiba. Kadib wuxuu yidhi agaasime waxaa la gaadhay waqtigaan magaaladeeda kusoo kala bari lahaa. Gacanyarayaasheeda ayaa soo kaxay iyagoo islamarkaana isweydiinaya waxa dhacaya. Kadib Mr. Sambi oo ku dul taagan gaadhiga ayaa hoos soo eegay iyaga. Wejigiisuna qaab kale ayuu ahaa. Kadib waxay weydiisay cidda uu yahay. Isna wuxuu ku yidhi sidee baad ii ilowdaa? Waxaan ahay qofkaad halkan u timid. Anigu waxaan ahay Sambi. Iyaguna markay hadalka malqeen way yaabeen. Iyagoo yidhi Sambi ma noocan oo dhan buu ahaa. Yadna waxay ku tiri waxaan hubaa inaad noocan u ekeen markaad waraaqada ku sawirnayd ee sidaas ku beddeshay. Isna wuxuu ku yidhi keliya waxaan sameeyey waxaan iska saaray maaskigii wejigayga ku xidhnaa. Kanna waa wejigayga saxda ah. Kadib wuu soo dhawaaday iyadoo kule ha ii soo dhawaanin. Islamarkaana isagu wuxuu ku yidhi marti ayaad ii tahay maadaamaad halkan oo dhan keligay u timid si aad aniga ii ogaatid. Marka waxaan kuu diyaariyey hadiyad yar. Hadiyadaasina waxay ahayd ukunta ay dadkani cunaan. Islamarkaana Mr. Sambi ayaa hadlay isagoo ku yidhi hawarwarin annagu dadka ma cunnee ee keliya ukuntaan cunnaa. Kadib raqabada ayuu qabtay isagoo sida bisada u soo qaaday gebigeediiba. Islamarkaana wuxuu ku yidhi meeshan waa meeshii wax lagu baranayay markay naga kaxeen. Kadib samada ayuu la booday isaga halka ay gacanyarayaasheedina qaylinayeen isagoo islamarkaana cirka sare ula baxay. Gacanyarayaasheedina waxay la yaabanaayeen sida halkaas u dhin u gaadhay. Dhanka kale Ohgo oo weli airportkii jooga ayaa xaqiiqsaday in agaasimihii uu la joogo boqorkooda. Dhanka kale Mr. Sambi dhulka ayuu kusoo noqday isagoo islamarkaana fooq ku dul deegay isagoo kor u haya iyada ayuu ku yidhi eeg wata magaalada iyaduye saa'id ayay u weyntay waxaana ku nool dad badan oo Sambi ah. Waxaanu leenahay shaqaale badan oo ka shaqeeya xafiisyada. Sidoo kale waxaan leenahay shaqaale kale oo ka shaqeeya dhismayaasha. Wax kastoo magaalada bini'aadamku leedahayna way leedahay waa laga helaya halkan. Laakiin iyadu waxay ku tiri waan fahmay kaliya dejiyo dhulkaygee. Kadib wuxuu ku yidhi waxaanu ka hadlaynaa ee ku xiga waxa weeyaan shuruucda iyo dastuurka u yaala magaaladeeda. Kadib wadada ayuu jiiday iyada wuxuuna ku yidhi wax walba waanu raacnaa shuruucaha waanu raacnaa wadadana ixtiraam ayaanu ku samaynaa. Isagoo wadada maraya ayuu gaadhi ku soo socday dhankiisa laakiin laag ayuu ka jaray gebigiisiiba gaadhigii kaasoo fooq ka jaray gaadhigii halka ay gacanyarayaashina yaabeen. Dhanka kale Balaaki ayaa kasoo badbaadiyey dirawalkii gaadhiga saarnaa iyadoo islamarkaana agaasimihi ku tiri waaba dili gaadhay sida aniga leeda shuruuc iyo dastuur baan leenahay. Isna wuxuu ku yidhi maya aqligal maaha ma dhimanayo. Dhammaan gacanyarayaasheedu aad ayay u awood badan yihiin islamarkaana iyaga daryeela muwaadiniinta magaaladeyda. Dhanka kale waxaa meeshii soo gaadhay gacanyarayaasheeda islamarkaana dhankeeda ayuu ku tuuray labadoodii halka ay qabteen. Isaguna wuxuu qabtay dhankii kale ee gacanyarayaashiidu joogeen. Islamarkaana wuxuu yidhi waan ogahay halkan waxaad u timid waxaanan kuu ogolaanaya inaad adigoo nabad qaba halkanaad ka noqotid balse haddaad isku didid inaad magaaladeyda joojisid ogow inaanu cidna noolaan doonin xitaa adiga dhoo. Islamarkaana wuxuu ku yidhi haddii aad u malaysid inaad noolaatid nolol dheer oo aad rabtid inaad dhimatid isku day inaad magaaladeeda soo faragashatid adaa ogaan doona waxa kugu dhici doonee. Islamarkaana gacanyarayaasheeda ayaa qabtayada iyagoo ku yidhi nugu xel magaaladeenii qofkani wuu waalan yahay bini'aadanba maahan u malaynayaaye sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaynu ka dejinnaa xilkan guddoomiyaha. isagoo hadalkiisii ayuu sii watay isagoo islamarkaana ku yidhi waad iskaga tegi kartaa iminka magaaladeyda wax cuntaana ha noo keenin annagu cunto idinkama baahnin iga hor dhaqaaq intaanan maskaxdeyda bedelin ayuu ku yidhi. Laakiin iyadaa kasoo daba hadashay iyadoo islamarkaana ku tidhi waan kaa qaatay inaad magaalada si fiican u maamuli kartid laakiin haddii aad guddoomiye tahay waxaad u baahan tahay inaad leedahay awood saa'id ah. Balse marka hadalka malqeen gacanyarayaashii Mr. Sambi saa'id ayay u naxeen. Iyadna hadalkeeda ayay sii wadatay iyadoo islamarkaana ku tidhi weli ma ogi awooddaada dhabta ah markaa waxaan rabaa awooddaada saxda inaan ogaado. Laakiin markiiba gacanyarayaashiisa ayaa dhankeeda usoo booday iyagoo afka qabtayada oo ku yidhi aamus. Mr. Sambina cidlada ayuu iska taagnay isagoo aamusan. Kadib wuu hadlay markaasuu ku yidhi maxaad tidhi waxaad rabtaa inaad ogaatid waxaan qaban karo. Taasina saa'id ayay uga naxisay gacanyarayaashii Mr. Sambi. Kadib Mr. Sambi wuxuu ku yidhi dabcan waan ku tusi doonaa. Wuxuu soo kaxeeyey meel bad ah isagoo islamarkaana ay hor taagan yihiin meeshii. Kadib Ohgo ayaa hadlay isagoo islamarkaana yidhi wax fiican meeshan kama soo socdaan. Kadib agaasimihii ayaa tidhi maxaad halkan noo keentay. Laakiin Mr. Sambi badda ayuu iska hor taagnay isagoon jawaabin. Kadib Ohgo ayaa la hadlay isagoo ku yidhi agaasime wax walba oo dhacay iminka kadib adiga ayaa mas'uul ka ah. Islamarkaana waxay ku tidhi maxaad ka hadlaysaa. Laakiin Ohgo wuxuu ugu jawaabay annagu wax qalada kuma lihin. Islamarkaana Mr. Sambi ayaa dhankeeda soo eegay. Kadib agaasimihii ayaa ku yidhi maxaad qabanaysaa. Balse gacanyaraheedii ayaa xaqiiqsaday inay dhagaxaantu kor u kacayaan isagoo islamarkaana yaabay. Mr. Sambina wuxuu isku bedelay qaabkiisii bini'aadamka ahaa taasoo ka nixisay agaasimihii iyo gacanyarayaasheedii. Kadib meesha ayuu istaagay baddii ayaa bilowday inay biyaheedii
biyaheedii saa'id u kacaan dadkiina way yaabanaayeen laakiin mar qura ayuu master saambi meeshii ka booday isagoo dabayl xoog badan meeshii ka timid halka ay agaasimihiina dhulka kusoo dhacday islamarkaana waxay waayeen master saambi meeshuu qabtay kadib ahaga ayaa soo qabtay dhaweyso isagoo islamarkaana ku yidhi eeg islamarkaana waxay aragtay meeraha saataran inuu master saambi ku taagnay isagoo hoos soo eegaya dhulka iyadna waxay la yaabtay sida tan ay caqligalka u tahay master saambina dhankeeda ayuu soo eegayey iyaga tani waxa ula muuqatay mid aan caqligal ahayn maadaamuu meeraha saturn saa'id uga fogaa dhulka iyagoo islamarkaana saa'id u qayliyo oo kule maaha waxani bini'aadam kadib gacantiisa ayuu master saambi qaaday isagoo islamarkaana labadiisa farood soo qalloociyey ayuu feedh u soo riday dhankooda taasina dhankooda ayay kusoo dhacday goobtii ay kaga beegnaayeen ee badda ay ka joogeen ayaa biyihii baddu saa'id kor ugu soo kaceen iyagoo islamarkaana magaalada dhan biyihii kor uga sarreeyey halka uu ahga iyo gacanyarayaashiina ilaalinayeen agaasimaha iyo gacanyarayaashiisii dhanka kale Violet iyo Dawn oo jooga xarunta ururka ayaa iyaguna dareemay waxaan dhacaya halka uu signalkuna u sheegay inay duufaan aad u weyn soo kacday markii ay dibadda soo eegeenna waxay arkeen baddii oo kor u kacday iyagoo islamarkaana isweydiiya haddii ay tani tahay dhammaadka adduunka kadib gidaaradii difaaca ayaa loogu talagalay inay magaalada ka ilaaliyaan biyaha iyo duufaanada noocan oo kale ah ayaa kor u soo kacay si ay duufaantan uga celiyaan magaalada iyagoo dirqi ku celiyey master saamina dhulka ayuu kusoo noqday isagoo islamarkaana weydiiyey haddii ay u baahan tahay inuu awooddiisa weli sii tusayada